أسبوع gudahiis waxaa ku xirtay in ka badan 400,000 500,000 hadda waxaan filayaa inay marayso 700,000 oo ay ku dhowdahay 800,000 oo maxay ahayd followers ah dhanka TikTok ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaad saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran kanaalka Ibn Abubakar. Fadlan haddaad ku cusub tahay dhaxalkan kaliya kugu leeyahay taqaanaa subscribe saar haddaad horna la joogtan like garay. Like waxay naga caawinaysaa inuu video meel fog gaaro. aad iyo aad ay u mahadsan tahay. Videogan haddaadan weli like saarin like saar waa ku sugayaa. Ma saarte? weli ma saarin ma iska saartid niyaa. fartaa jik ku sii bis badhanka meesha sulk saaran waaye fartaale dhag ku sii. aad iyo aad u mahadsantihiin. Social media maxaa qabsaday inta sanadka lagu guda jiray 2023 dabayaaqadiisa ama dhexdiisa. Okay, marka hore haddaan ku bilaabo sanadka yacni 2023 saad ogtihiin dhammaan rabaa waxaa ka harsan only 3 days aan maleynayo waa 3 days 3 maalin ka harsan. Okay, yaa uu hadal hay badnaa markii sanadka 2023 dhanka social media waxaa soo baxday gabar la yiraahdo ay ku soo caan baxday adkaatay qaali. waa taqaaniin aan filayaa adkaatay qaali waxa waaye Soomaali waxa waaye qof hadduu talent la imaado way u qoraysaa talentigooda. waa ogtihiin qoftaas usbuuc gudahiis waxaa ku xirtay in ka badan 400,000 500,000 hadda waxaan filayaa inay marayso 700,000 oo ay ku dhowdahay 800,000 oo maxay ahayd followers ah dhanka TikTok ah. account cusub kan way furatay ayadoo live ku jirta ujeeday ay ku mareysay hadda maybe 24,000 meelaas camal ay ku xiran tahay. Okay, waxaa qabsaday social media adkaatay qaali kadib gabar masas nicotine aad iyo aad masas nicotine waa taqaanaan wax waaye qaali waxay ahayd qalbi aad iyo aad wax waaye qalbi ayadana usbuuc gudahiis yacni waxay ku sheekeynaysay sheeko ay ahayd tahriibka. Soomaali waxa waaye ogtihiin qof hadduu tahriib loogu sheekeynayo waxa waaye maskaxdiis qac ayaa ka yeeraysa. Anaaba ka mid ahaaba waxa waaye ku xirnaa wax cilad yar lagu arkay oo ah ayadoo live ku jirto waxay isticmaalaysaa bahasha la yiraahdo shiishad ayadoo cabayso aa la arkay. Soomaali waxa waaye waa taqaaniin qof haddii yacni kor la geeyo horaa waxaa loo yiri nalkan daara mar buu damaa. hees meen horto nalkan daara mar buu damaa aad iyo aad marka markii kor lagu qaado waxa waaye danaa lagaa leeyahay maalin uun hoos waa imaan doontaa. yacni ciyaar kor laguma qaadin. qoftan waxaa kor loogu qaaday waxay ka sheekeynaysay tahriibka yacni say ku soo martay rafaadka ay soo martay haddana yacni heerka ay ka taagan tahay ayadoo saas ee Soomaali yacni waxay ka samaysay sheeko filin camal ay ka samaysay waxaaba loo sugaa baarti ah. dad badan waxay dhaheen niya qalbiyey ma YouTube furatid qalbiyey ma page Facebook furatid oo lacag ay ka samaysid TikTok waxa waa lacag lagama sameeye oo anaga ku daawanayna anaga diyaar u ah waay. ayadoo saas yacni ku guda jirto qaybtii ugu dambeysay miya ay soo dhigtay kadib waxa waaye ayadoo live ku jirto waxaa lagu arkay ayadoo isticmaalaysa bahasha la yiraahdo shiishad 400,000 may mareysay hoos la keenay 368,000 miya meelaas camal la keenay yacni maxay ahayd jeclahay. Okay, aan ka gudbo marka taas haddana waxaa soo baxday yacni wuxuu soo baxay dadkaas dhan waa laga horeeyay master another level aad iyo aad master another level waa iska taqaaniin oo waxa waaye team another level is not easy alle halkan ay islaamaya madaxa ay saarantiin dhamaantiina. haddana waxa waaye cimrigu jiraa ilaahay maxay ahayd dambigiisa Allah dhaafo anagana ma jecli inaan yacni dambigiisa aan falaqeeyo wuxuu soo marayo yacni aan sheego yacni qof ceebtiis inaan sheego ma jecli. laakiin waxaa mawduucan ka sameeyey 2023 maxaa social media isbedel ka imaaday. waxaa isbedelkaas yacni ka imaaday qalbi xayaat qurux iyo another level. xayaat qurux waxay ku soo caan baxday adkaatay qaali. qalbi waxay ku soo caan baxday nicotine ma lahan bahasha nicotine kuma jirto. Okay, another level asna wuxuu ku soo caan baxay another level team another level la dhahaaba it's not easy ugu dar anigana. marka yacni muuqaalkan kuma sii dheeraanayo
maxay aheedoo intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkan barnaamij caynkan intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu